kadib markii dhawaan mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga kulmiye ay sheegeen in xisbigii laga saaray Maxamuud Xaashi Cabdi oo kamid ahaa siyaasiyiintii dhidibada u taagay xisbigaasi ayaa waxa ka dhalatay hadal hayn weyn bulshada ku nool magaalada Boorama ayaa maalmihii la soo dhaafay arintaasi si weyn u hadalhayay maanta ayaan wax ka weydiinay qaar kamid ah bulshada Boorama sidee u arkaan in xisbiga laga saaro Maxamuud Xaashi Cabdi wallahi niyahow hortaan waxaan ahaa taageerayaasha xisbiga kulmiye جماهيرتي قبل كهذا القصة نادي حزب الكلمية أنا إسلام مرهان تانا لدع السنة دي كوكان على السنة دي هو جامين تيجي ماملكا محمود حاشي عبدي هرت محمود حاشي عبدي ما هين تاجيرة كلية حزب الكلمية وما هين محمود حاشي عبدي وحها بسيه هو جاميه تابجليه الكوميدي هو وين حزبها وقد ضير لو صاق هو محمود حاشي عبدي وحنا كسر تاجيرة حزب الكلمية ليه هو داوع وين بيكوتها حزب الكلمية هدي أنا نهاية دليرة قبل كهذا لدع السنة دي هو جامين تا iyo mas'uuliyadda Maxamuud Xaashi Cabdi hogaamiyaha ruuxiga arintaas waan cambaaraynaa waxaan cod dheer ku leenahay isqabsiga iyo dadka saliigsan hogaaminta xisbiga in loo yeero lala hadlo dibeediyo loo furo doodo furan loo furo lagu qanciyo xisbiga hadii maalin bal la yiraahdo xisbiga qof aanu ka saarnay xisbigu god dheer buu ku dhacayaa waxaan qabnaa haddaanu nahay taageerayaasha xisbiga kulmiye in aan arintaasi mar dambe loo labaynin antaan Maxamuud Xaashi Cabdi سياسيا ما أنت وحنا وركا إنه سياسي بيسان يمكله صحة سياسة سومالان حتى ما أنت سياسيا وحنا قبا ما دام صحة سياسة سومالان لقبرتي إنه ميزان مقعوي كل هي إن وضد الله مرة يا حيد أدو خلاف دعو مر ليبة خلاف مر دعو وإن مثل وضع فريستو وحزبي كل مية ولا هذا ووفر بيه حيد مسؤولية حزبي كل مية وحلاي هاي fadhiga hal looga noqdo nimanka dadka madaxda ah horay jaamac shabeel baa looga Ali Marshal baa looga Maxamuud Xaashi ognay xubno badan oo siyaasiyiin mukul miisaan labayn ogeyn oo iska socdoon aayir leeydi marka anu xisbiyada waxaan ku talin lahaa bulshada rayidka in xisbiyada la maal gashado dhawaaniin Maxamuud Xaashi laga saaray xisbiga kulmiye sidoo aragtaa balaado kamid bulshada Boorama wallahi ninkaasi aad baa lagu gafay ninkaasi wuxuu ahaa kulmiye aasiyaankii buu ahaa aadna u soo shaqeeyay xukuumadii Siiraayana ragga ugu caad buu ahaa Muuse halka hargab uu qaadan ku Muuse ninka uu ku gafuu ka qaadan xilka hargab halka ka qaadan Muuse maanta farteeda eedaysan buulay isaga maanta afkiisa eeday marka Maxamuud Xaashina waxaan leeyahay annaga shicibka ka raali gelinaya halka nagu shiftaan aanu cod ku shubanaa Maxamuud Xaashi ina laga saarmaan xisbiga aad boonin u fiicanaha madaxweynaha maxaa ka codsanayna inuu soo celiyo Maxamuud Xaashi inuu aad u fiicnaa waxay aniga aragtidaas ila tahay kullay qolada kulmiye ee baa jiray kulmiye biina ugu jiray kulmiye siina ugu jiray Maxamuud waxaan u arkaa inuu ahaa kulmiye aadi waxa weejaanu ninka Maxamuud Xaashi waxaan arkaa nin xisbigan kulmiye tacab badan ku lahaa goor walba isagoo ka hadlaya abaabulkii ka hadlaya doorashadii madaxweynaha ka hadlaya hormuudka shirarka xisbiga hormuudka أنا ده واحد وهايستي إنه مقربين تحسب جاي بانو أركا قفكنا هدو ماشي حقوق بدن كله يهاي ده إنسان ما يمركانو أرنتا وحنو أركان نكاسي كل كان قد سعود كيسي يا أركتي ده يدي السوشيال ميديا كلا السعودية وقان قارس كمل هنا نكاسين حقوق ولا لدوتسي ولا جو كفي بانو أركا أركتي ده وراي جاي محمود حاشي عبدي وحانشري ما يركبوا ريب رعو سومالان عاصمة اللباد ومدة كلا وحاو هانشري نكي لابات حسبي كلمية أساسية أحمد سيلاني مركا لقي مادو مركا سيدا ديركي شيغي كلمية بي كلمية سي محمود حاشينا كلمية نمبر 1 أنا نكرا مركا أحمد سيلاني لقي مادو تعدي وين ولا قولا كعي حدانا برشدة رهيب بورما نهينا وانا كسور شينا أرين كاي ساقا waxaan markasta taageersanahay Maxamuud Xaashi iyo garabkiisa waxaan u arkaa horta Maxamuud Xaashi wuxuu ahaa siyaasi mug weyn kula qaranka Soomaaliland oo haragide ka shaqeeyay nabadda iyo ma garanaysaa hanaanka toosan waxaan u arkaa in haddii uu khilaaf dhaco in la waafajiyo nidaamka iyo kriteeriyada iyo sharciga xisbiga u yaala maadaama uu ahaa ninkan tiir weyn oo kamid ah tiirasha xisbiga kulmiye siyaasigaasi arrinka hadda lagu sameeyay waa arrin baalmarsan sharciga xisbiga kulmiye waxaan u arkaa Maxamuud Xaashi wuxuu asaasayaashii kulmiye in badan soo dhisay madaxweynihii Maxamuud Siilaan Axmed Maxamuud Siilaan soo dhisay Muuse Biixi
tacab badan xisbiga soo geliyay sida iyagu iminka xisbiga kulmiye ay sheegeen kuma jirin xisbi golaha dhexe golo fulineed meelba kuma jirin marka taageero u haadeen ninka taageeraha culus ee tacab iyo maal iyo wax walba soo geliyay xisbigii waan ka saarnay waxaan u arkaa message dadka taageerayaasha xisbiga kulmiye loo diray oo la leeyahay idinba baahnin marka waxaan u maleynayaa inuu kulmiye uu doorasho diyaar u yahay maadaama uu taageerayaashii cidii tacab gelisaba uu leeyahay xisbiga waan ka saarnaa